Wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhowaada warbixinadeennii taxanaha ahaa ee aan ku eegaynay marxaladda waddanka Ukraine. Halka aad naga daawanaysaana waa Tubta Wararka. Hagaag warbixin xiise leh ayaan idinka haynaa maanta. Khilaafaadka iyo marxaladda adag ee u dhaxaysa Ruushka iyo sidoo kaleeto waddanka Ukraine. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu ka badbaaday isku day dil oo lagu doonayay isla markaana nafta lagu dhaafin rabay. Laakiin waxaa la leeyahay qorshahaas waxa uu noqday mid fashilmay oo gebi ahaanba meesha ka baxay. Saraakiil ka tirsan dowladda waddanka Ukraine, si gaara ninka ugu sarreeya sirdoonka waddanka Ukraine, ayaana xogtan dah ka qaaday. Inkastoo uu dahay waxyaabo badan oo uu diiday in uu ka faalloodo, haddana warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa caalamiga ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn u daabacay wararka sheegaya in Putin uu ka badbaaday isku day dil. Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa ka badbaaday weerar la doonayay in lagu qaarijiyo wax yar kadib markii uu bilowday dagaalka dalka Ukraine, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan militariga dalka Ukraine. Arrintan waxa ay soo baxday goordhow, inkastoo arrintu ay fashilantay muddo 2 bilood ka horna la fuliyay qorshahaasi. Waxaase arrintu ay ka socon kari weyday, isla markaana aqbali waayay hay-adaha sirdoonka ee waddanka Ruushka oo feejignaan badan ku jiray, isla markaana la socday xogo badan oo la xiriira hawsha fashilantay ee dilka Mr. Putin. Qaar ka mid ah warbaahinta caalamiga ah oo ay ka mid yihiin telefishinka NDTV la yiraahdo oo fadhigiisu waddanka Hindiya yahay, iyo wargeyska New York Post ayaa daabacay oo shaaciyay warkan. Waxayna ka soo xigteen wargeys markaa ka soo baxa dalka Ukraine oo magaciisu la yiraahdo Ukrainska Pravda ee dalka Ukraine laga leeyahay. Inkastoo xigasho dhowr ay jiraan, isla markaana xogahana ay si talantaale ay u soo kordhayaan, ayaa haddana warbaahinta dunidu kiiskan iyo isku dayga dil ee Putin loo qorsheeyay ee se alla uu ka badbaadiyay ay si weyn u daabacayaan. Inkastoo madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu leeyahay ilaalo aad u adag iyo gawaari ay adag tahay in lagu dhex dilo Mr. Putin, haddii aanu kaaliyaashiisa ugu dhow shirqoolkaasi aan waxba ka ogeyn. Isku dayga dil waxa uu dhacay wax yar kadib markii dagaalku uu qarxay. Hogaamiye Putin waxa uu ka mid yahay madaxda dunida ugu ilaalada badan markii laga hadlayo amnigiisa iyo qaabka loo sugayo. Wararka qaar ayaa xitaa sheegaya in sirdoonada Putin ay ka mid yihiin shimbiro aan la fahmi karin iyo eeyo loo tababaray hab casriya. Waxaa kaloo ka mid ah baabuurku uu saaran yahay oo aanay xabaddu karin ka sokow, haddana xitaa satellite u gooniya uu ku xiran yahay, kaas oo wax walba oo dhulka yaalla oo uu dhibaato u geysan kara shaacin kara. Jenaraal la yiraahdo Kirill Budanov oo ah madaxa sirdoonka ee dhinaca gaashaandhigga waddanka Ukraine ayaa dibadda u soo saaray xogta ku saabsan isku dayga dil ee la doonayay in lagu qaarijiyo hogaamiyaha waddanka Ruushka. Arrintan waxaa markii hore qorsheeyay sida la warinayo sirdoonada Mareykanka, si gaara CIA-da plus FBI-da Mareykanka, sirdoonada kale ee gobolka iyo guud ahaan kuwa NATO.
mid walba waxa uu ka heli karay xogaha la xiriira dadka ku dhow madaxweyne Putin ayuu miiska soo dhigay. Inkastoo iyagu laftirkooda aan is aaminaynin, haddana waxaa jirtay wuxuun in la qorsheeyay. Laakiin madaxweynaha waddanka Ukraine arrintan marna si toos ah uguma uusan hadlin. Xogta uu daha ka qaaday madaxa sirdoonka ee militariga dalka Ukraine ayaa noqonaya warkii ugu xiisaha badnaa iyo isku daygii ugu wanaagsanaa ee Ukraine iyo xulafadeedu ay kula kaceen maamulka madaxweyne Putin. Sarkaalkan ee la yiraahdo markaasi Budanov waxa uu yiri waxaa jiray isku day dil oo la rabay oo dhicisoobay. Kaasi qorshihiisu waxa uu ahaa in madaxweyne Vladimir Putin lagu kharijiyo. Laakiin nasiib darro, falkaas ayuu sheegay inuu dhacay ama uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Caucasus oo ku yaala waddanka Ruushka. Nasiib darro, sidii aan wax u qorsheynay waxba uma dhicin. Laakiin waa jira qorshahaasi, laakiin waa uu dhicisoobay, ayuu waraysigiisa ku sheegay. Warkan ayaa soo baxay xilli uu socdo dagaalka siina xoogeysanayo markaasi dagaalka u dhexeeya ama hardinka militariga u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Sidoo kalena ay markaas soo tirayaan xogo kale oo muhiim ah oo la xiriira xaaladda madaxweyne Vladimir Putin. Warbixinta tan xigta ayaynu kaga hadli doonaa warbixinadaasi soo socda. Marka la eego tillaabada iyo waraysiga uu bixiyay sarkaalka ugu sarreeya dhinaca militariga ee sirdoonka, ninka la yiraahdo Budanov, ayaa hadda feejignaan hore ku sii abuuraya hogaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Waxa uuna bilaabay goor horeba sida la sheegay in ilaaladiisu ay sidii hore ka kororto. Waxaa hadda si weyn amnigiisa loo sugayaa hogaamiye Putin. Inkastoo dalalka reer galbeedka iyo NATO lagu daray Mareykanka wax walba laga filan karo, haddana culayska siyaasadeed ee saaran dalalkaasi ka sokow. Putin markii uu ka badbaaday isku daygan dil ayuu mar kale carada afka la sii dulay. Waxa uuna u xanaaqay sidii barqab golongolay oo geel lagu sii daayay oo kale. Waxa uu habeen arag u qaatay in dunida uu joogo nin isagu basaasnimo ku dhan oo shirqool maleegi kara. Midaas ayuubuu u qaatay inay tahay riyo maalmeed, ay tahay in goor hore buu ilaawo. Markii loo sheegay in isku day dil uu jiro, ha yeeshee la fashiliyay, ayuu yiri war kuwan maba garanayaan Putin oo ima oga miya inaanba ka soo shaqeeyay sirdoonkii midowgii Soviet ee burburay. Markaas oo anigu aan ahaa sarkaal sare oo muhiima isla markaana xeelad badan. Waxaan ka baqayaa tii Rabbi inaanu dhinto, laakiin dad baa ku dilaya ama shirqool baa lagu dhigayaa. Walaaceeda mar hore ayaan meel ka seexday. Hadal u dhigme ayuu qabaa madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin. Inkastoo xaaladda dagaal ee dalka Ukraine aanay ammaan lahayn, haddana madaxda caalamka waxa ay fahmi laayihiin albaab ay u garaacaan Putin oo uu aqbalayo. Ilmada ka daadanaysa hoggaanka ugu sarreeya dalka Ukraine iyo dadweynaha dalkaas ayuu Putin ku raaxaysanaya. Waxa buu u arkaa in falkan uu mar hore ahayd in uu qabto, ha yeeshee uu dib u dhacay. Sababtuna waxa uu eedda dusha ka saarayaa hoggaanka sare ee Ukraine.